waftiga socday xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ayaa lagu soo dhaweeyay deegaamada hoos yimaada degmooyinka Sabawanaag iyo Cadaadley. waftigana uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere, isla mar ahaantaana ay qayb ka ahaayeen wasiirada duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe, wasiir dowlaha ganacsiga Maxamed Warsame, iyo wasiiru dowlaha biyaha Cabdiqaadir Dhagaweyne iyo xubno ka socday xisbiga iyo xukuumadda. dadweynaha deegaankaas ayaa si heer sare u soo dhaweeyay waftiga una soo bandhigay tabashooyin dhinaca adeegyada arrimaha bulshada oo ay doonayaan in wax laga qabto, kuwaas oo isugu jiray caafimaadka, waxbarashada, biyaha. dhinaca kale waftigu intuu socdaalkaasi ku guda jiray waxa uu xariga ka jiray xafiisyo badan oo uu leeyahay xisbiga kulmiye. waftiga ayaa dadweynaha u ballan qaaday tabashooyinka ay kala hadleen in ay wax badan ka qaban doonaan. dadweynaha deegaanka ayaa u soo bandhigay in ay xisbiga talada haya ee kulmiye si weyn u taageersan yihiin, waxaana ay muujiyeen isu soo baxyo badan iyo calamaan iyo durbaano iyo heeso ay waftigaasi ku soo dhaweynayaan tuulo walo ay tagaan. waftigu waxa uu tuulo u tagay dhammaan deegaanka hoos yimaada degmooyinka Cadaadley iyo Sabawanaag. حسب الكلبيه وكل سو كان كيف حيتطاع يا وحقبض فربضنا وانو دي سمين دونا دي لهي إلهي نبضها waxaan la wadaadii aad bad mahadsantii sida noo soo dhaweyseen ana kulan ku faraxsanay inaan idin imaadno reer qotan de waxaan hadii Ilaahay ilaaho markan isuukan horeyn mayso isuguna keen dambeyn mayso. haddii reer ku geedi galo halkii loo guuray hayaan ku jarmaadu yahay qoraasaha loogu diray. haddii reer ku geedi galo halkii loo guuray hayaan ku jarmaadu yahay qoraasaha loogu diray. hosiisaan muuqaaniyo habeen cadada ka wacan hantida meel fog kaaga maqan waxaad haysataa ka roon. hosiisaan muuqaaniyo habeen cadada ka wacan hantida meel fog kaaga maqan waxaad haysataa ka roon. horaan waxtar lagu farxiyo xisbigan kuuluga hele halkaa ka sii wade wuxuu codka siiyo injiya kulmiyo u kaca injiya kulmiyo u kaca. horaan waxtar lagu farxiyo xisbigan kuuluga hele halkaa ka sii wade wuxuu codka siiyo ugu soo qadiimi la ahayd ilaa maalinta xisbiga kulmiye la aasaasay ilaa maalinka maanta ma meel kale codkeena sii jirnay balli kaliil dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. balli kaliil dhammaantiin shacabka ku nool gaar ahaan haweenka aad iyo aad baa u mahadsan tihiin
waxaannu idinka mahadnaqaynaa mar kastoo aannu nimaadno soo dhowayntiinna wanaagsan qalbiga wanaagsan dhiiran kalgacalku ku jiro aad iyo aad baannu idinku mahadnaqaynaa waxaannu maanta halkan u nimi xafiiskii xusbiga kulmiye inaannu furro idinsoo booqanno idinla joogno deegaankeenna oo dhan baannu maraynaa sabawanaag iyo cadaadley labadaba waannu maraynaa tuulooyinkeenna oo dhan dhammaantood waxaan farriin yar baan idin farayaa oo ah xusbiga kulmiye dalka somalilan wax badan buu ka qabtay muddadii uu hayey mar labaadna inuu talada ku soo noqdo buu doonayaa reer balli kaliin loo sheegi maayo waa kulmiye dhammaantood waxaannu doonaynaa codka inaa inoo ilaalisaan oo mar labaad siisaan sida ballaadhan ee aad noogu soo dhowayseen sida magaalada aa u muujiseen taageerada aa u haysaan xusbigan kulmiye waxaannu ilaahay ugu mahadnaqaynaa nimcooyinka iyo roobku inoo shubay aannu soo marray maanta dhulkaannu soo marayno o dhan waxaannu idiin sheegaynaa oo aannu u soconnaa waxa weeye in aannu cod u raadinno xusbiga halkana waxay ka mid tahay dhulka laga taageeri jiray marka horeba kulmiye iminkana aannu doonayna inaannu hubsanno inaynu halkii nahay waddankeennu horaynu u soconnaa qabyaalad waynu ka sii soconnaa waxay noo sharaxaan xusbiga kulmiye musharax gobolka maroodijeex ka soo jeeda ee aynu ka mid nahay balli kaliilo degmada meele kale aad iyo aad baa u mahadsantihiin aniga waa markii ugu horraysaan imi halkan degmadan balli kaliil maanta igu horraysa sidaan filayo waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanay inaan ka soo qayb galo xafladdan kulmiye ee maanta balli kaliil laga qabtay sidii raggii horeba sheegay mas-uuliyiintii sare waxaanuu soconnaa waxa weeye inaannu xaaladda dalku ku sugan yahay iyo ummadda ogaanno kuna baraarujinno inaan xisbiga kulmiye aynu ka tirsannahay codka siiyaan waxaa sidoo kale kelmad kooban siin doonaa guddoomiyaha degmada sabawanaag wadane cali cumar dalab innagu haddaynu nahay reer sabawanaag waxaynu leenahay laba saldhig booliis baynu leenahay mid balli kaliil baa leh midna xarunta degmadaa leh waxaa lagu xusuustaa waxqabadka xusbiga kulmiye ee uu qabtay maanta balli kaliil iyadoo amnigeedu kala daadsan yahay ayaa waxaa loo sameeyey saldhig rug boolis oo maanta booliska heegan ku yahay oo ay qoryaha ku gaadhan yihiin amnigooda ku ilaalinayaan dhirtii u ilaalinayaan amnigoodii ay ku ilaalinayaan wax ilaahay lagu mahadiyo weeye aad iyo aad baan arrintaan ugu mahad celinaynaa xukuumadda idinkana waxaan idinka rajaynaynaa maalinta ay timaaddo doorashadu inaad xusbiga doorataan la dheelgaraysaan waxaa ka doonaysaan hadlataan nimaan hadlan habartii wax ma siiso idinkoo xukuumaddiinna iyo xusbigiinnaba wixii aad doontaan doonaysaan weydiisanaysaan oo aad ka codsanaysaan xusbigana waxaan filayaa iyo xukuumaddu inay idiin ballan qaadi doonto oo idiin samayn doonto waxaad ka codsataan dayrkii balli kaliiloo isagana la samaynayey dubbuu u yaro dhacay laakiin se waa la samaynaya u barsoosgaraysan yahay annagaa og waxaannu ku faraxsannahay sidaa noo soo dhowaysanna aad iyo aad baannu ugu faraxsannahay waxaan ognahay reer balli kaliil inay weligood yaalahood maxaafid ahaayeen iminkana waxaanu jeclaanaynaa ilaa sidiinni halkiinni ka wadaan oo maxaafid noqoto laakiin waxaan kelmado kooban siin doonaa wasiiru dowlaha iyo wasaaradda biyaha degmada balli kaliil dhammaan rag iyo dumarba waan idiin mahadnaqaynaa waxaan leeyahay waftigan uu guddoomiyuhu hogaaminayay wasiirraduna ka mid yihiin waxaannu u soconnaa uun in aannu hawlihii qaranka iyo hawlihii xisbigaba annagoo isku dhex wadna inaannu idiin mahadnaqno soo dhowayntiinnan waxaanannu idinku soconnaa inaannu xaaladdiinna ogaanno ta gaarka ah iyo ta degmada iyo ta tuuladaba
kolley waqti badan baynu qaadan doonaa wax badanna waynu ka wada qaybsan doonaa insha Allah annagoo xukuumaddii iyo xisbigiiba ka wada kooban waana mahadsantii soo dhoweyntiina xisbiga kulmiye doorashadii hore ee uu ku soo baxay balli kale deegaanka balli kale wuxuu ahaa dhammaantii kulmiye waa maantana kolley sidii oo kale baa laga eegaya degmada hore waxaa loogu yiqiinay kulmiye ayaa loogu yiqiinay aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa abaabulkiinna aad baanu idiin soo dhowaynaynaa wixii maxay haytay hoos aynu isu odhanayno hoos baynu isu odhanaynaa hoos baynu wada hadlaynaa mar labaadkana waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadweynaha reer balli kaliil ee halkan isugu yimi inayna soo dhoweeyaan taageerada mugga iyo qiimaha leh u fidinaya xukuumaddooda iyo xisbigooda labadaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin rag iyo haweenba runtii hadal hore loo dhammeeyey waxaan aaminsanahay waxyaalo badan waa la qabtay dalkuna waa ballaaran yahay baahi jirtay halkan oo annaan markhaati ka ahaa oo ah iskuulka boardingka in qaybo lagu daro waa jirtay waxaase xaqiiqo oo jirtoon ogahay miisaaniyadda qaranka markii duruufaha abaaruhu ay nagu dhaceen iyo biyola'aantu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu si niyadsan u eegay oo dib u qiimeeyey in laga fuudh yeelo sidii abaarta dadka iyo xoolaha looga saari lahaa markaa waxaa la hakiyey wixii mashaariic ku jiray waxaan hubaa iskuulkaasi qayb buu ka ahaa miisaaniyaddu ku jiray iyadoo taasi jirto haddana kaga tegi mayno sidaa qasab waxa ah biidni illaahi tacaalaa si kastoo uu ku suurtogelayo inaynu qabyo tirro oo dhammaystirro odayaashana waa ka wada hadlaynaa intaanan tegin waxaanan filayaa wixii halkan yaallaa inay taa la xidhiidho biidni illaahi tacaalaa idinkana waxaa laydinka baahan yahay waxa weeye dee sidaa walba ugu qiimaysnaydeen maantana waxay noo taagna waxa weeye waa musharax garanaya dhulkan joogi jiray balli kaliil wakhtigii halganka dalka xorayntiisii joogay maalintii uu idin yimina sidaa idinku sheegay meel weynna ay ugu suntan tahay tuulaha balli kaliil iyo deegaankuba inaynu tixgelintiisa siino ku qiimayno taa biidni illaahi tacaala waxaanu ka soo jeedaa gobolka maroodijeex waa run sida cabdulaahi geejire sheegay dee codkiinana waa eegaynaa annaguna haddaannu wixii aannu ballan qaadnay wax ka qaban weyno dee waa annagay nabar nagunu yaallo weeye mana jeclina saasii ahaatee wax baanu ka qabanaynaa biidni illaahi tacaala waxaa kaloo nuu soconay waxaa qayb ka inaannu qiimayno oonu eegno duruufta iyo wadciga deegaanka waxaan ogahay alxamdulilah roob wanaagsan baa idiin daa xareeddaa meel walba wadhan ilaahay aan ugu mahad celina taana biidni illaahi tacaala hinjiya kulmiyo u kaca hinjiya kulmiyo u kaca
intuu qabsaday xisbigan hoodada wata degmadan oday cali hugur oon doonayo inuu kelmad idhaahdo xukuumadda kulmiye intay talada haysay degmadan Sabawanaag waxay u qabatay wax fara badan oo la soo koobi karin waxa ka mid ah guriga degmada oo ay u dhistay xukuumaddu oo $22,000 ku baxeen idina kaga qayb qaadateen arigiinii oo aan idinka hayaa 40 neef oo aad iyo aad ugu mahadsantiin waxa kale oo ay dhistay aqalka martida oo $54,000 ay ku baxeen waxa kale oo ay dhistay saldhigga booliska oo ay ku baxeen $25,000 waxa kale oo ay dhistay guriga xanaanada xoolaha oo isagana hanti ay ku baxday ilaa $15,000 waxa kale oo nayloo iibiyay gaariga ambalaaska ahaa oo $35,000 nayloo siiyey waxa kale oo nayloo tuulayaasha laga qabtay horumar fara badan degmada waynu sarfayr garaynay waynu dhisnay waxyaabo fara badan baa nayloo qabtay hadda dhaamkii ayaa nayloo qodayaa oo 392 qof ay ku mushaar qaadanayaan oo dhisayaan waxa la waxaasi waxay ku yimaadeen horumarinta iyo himilada iyo higsiga iyo wacyigelinta iyo talada ay xusbigu ku hogaaminayaan macal hay'adaha sida ummadda wax ugu qabtaan ayay ku yimaadeen wax laaliya waxa soo dhan hay'adaha wax idin qabanaya hay'ad iska imanaysa ma jirto oo iska qulqulayso dadku wax siinaysa waxay ku shaqaynayaan hay'adu talada xusbiga iyo talada dawladda ayay ku imanayaan degmadan marka hore sidaa ogaada hamoodina hay'ad wax iska sidaaynaydeen manasoon waxa kale oo la qabtay biyo la sirfay gareeyay $12,000 baa ku baxay 8 goobood baa la eegay oo lagu eegay la sirfay gareeyay si aynu ula soo baxno biyaha dhulka hoostiisa ku jira arintaasina way noo qabsoontay waxyaabaha kale loo qabtay degmada aad bay u ballaaran yihiin 740 macallin baa nayloo mushahariyay iskuulo badan baa nayloo dhisay deegaamada laga dhisay aqalkii MCH baa nayloo furay oo maanta shaqaale ka shaqeynaya oo xidhnaa in alaala inta wax alaala waxay noo hore uga jiray oo aan ahayn iskuulo faaruq ah oo 3 qof ka mushaarsan yihiin may jirin aad iyo aad bay ugu dawladii hore waxay qabatay ku maadsantay laakiin se wax qabadka weyn ee ballaaran ee loo qabtay waa mid aad iyo aad uga ballaaran wixii dawladii hore ay noo qabteen waxaan rajaynayaa inaad dooran doontaan xisbigiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intii aan oran lahaa waxa dhameeyay gudoomiyihii degmada aad buu mahadsan yahay waxa qiimo badan oo qofku yeelanaya waxa loo qabtay ay xukuumaddiisu u qabtay marka uu sidaas oo kale u qirto ee uu yiraahdo intaas oo waxyaabood bay xukuumaddan noo qabatay waa wax aad iyo aad u qurux badan bini'aadankana ku wanaagsan wixii loo qabto inay sheegaan xusbiga kulmiye dalka Soomaaliland oo dhan meel kasta tuulo kasta dalkeenu intuu ka kooban yahay wax qabad aad u fara badan buu ka qabtay weli muu gaadhin halkii uu doonayay inuu wax ka qabto dalka inuu gaarsiiyo dhaqaalihiisa kor u qaado caafimaadkiisa kor u qaado tacliintiisa kor u qaado biyaha iyo deegaanka kor u qaado wax ka qabadkiisa weli halkii uu doonayay muu gaadhin laakiin wax badan buu ka qabtay waa taa maanta aqranaysaan baa degmo kasta iyo tuulo kastaba ay sheegaan dadku 7 sanadood uu kulmiye hogaaminayay laakiin weli halkii aanu doonaynay maanu gaarin maanta waxaanu idinku nimi inaanu talada mar labaad ku soo noqonno musharax baanu wadnaa xusbiga kulmiye mujaahid Musabbix Cabdi oo ka sharaxan xusbiga kulmiye ayaanu doonaynaa sidii aanu dalkan degmadan dalka Soomaaliland oo sidii wax loogu qaban lahaa inaan ninka nala doorataan oo codka siisaan insha Allah bidmillaahi kariim 2 bilood ka bacdi baynu halkan isugu soo noqon doonaa wax badan oo ka dhiman degmadana waa la fulin doonaa codkana waxaanu idinka rajaynaynaa inaanu codkiinu meel kala marin ee aasiisaan xusbiga kulmiye waxaan doonayaa inaan u yeedho 2 oday oo odayada magaalada oo maamuuska kamid ah Caaqil Saciid Maxamed inaan u yeedho kelmad yiraahdo Saciid Cabdilaahi wasiirka booliska iyo hawada Farxaan Aadan Hayde oo intuu joogay dalka iyo dadkaba wax weyn u qabtay oo ku firfircoon haday xagga waxbarashada tahay haday geeska tahay degmahaana wax ka qabta aad baan u salaamay oo soo dhaweynaya waxaan taay raacay xagga siyaasadaha iyo waxa ka dhiman degmada iyo waxa loo qabtay waxa ka waramaya ama ka waramay gudoomiyaha iyo cidii ku habsan anigu
siyaasad xusbi iyo xaggaa ka hadli maayo wuxuun baan sheegayaa warbixinta dadweynaha halkan ku nool dadkanu boqolkiiba xoolaha waxa u soo hadhay 20 neef abaarihii aad bay wax weeleeyeen ilaahay abaarihii wuu ka saaray maanta roobka si fiican buu noo helay waa barwaaqaysannahay halkaas waxaan leeyahay halkaas waa ilaahay mahadii dawladdana waxaan leeyahay cidda ka mas'uula waxa dhiman insha Allah si fiican ha uga qabtaan dalka mahadnaqa kadib walaalayaal kelmadayda anoo soo dheereynay waxaan soo gaabinayaa halkan maanta aynu joogno degmada Sabawanaag oo kamida degmooyinka waaweyn oo hoos yimaada gobolka Maroodijeex waxaanu aad ugu soo dhaweynaynaa oo waxa weeyaan soo dhaweyn badan naga mudan oo codka iyagana aanu siinaynaa xisbiga kulmiye waxaan salaan idinka sidaa gudoomiyihii oo aan wiig 7 cisho la socday galbeedka aanu soo wada maray oo fariinta galbeedkana laga soo faray deegaanada galbeed ee dalka ay ahaayeen halkaa codkii waa diyaare degmooyinkeenii kale inoo taga weliba gaar ahaan kuwa Maroodijeex ka kooban gobolkan iyo reer Hargeysa deegaankeeda madaxweynayaashii dalkan soo maray wixii dhinteen ilaahay ha u naxariisto inta nool la sharafa ku noolaadaan iyo cimri dherer iyo caafimaad iyo cibaado suuban waxay ka soo kala jeedeen gobolada dalka oo aan Maroodijeex ahayn Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaahay u naxariistay wuxuu ka soo jeeday Togdheer Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Allah u naxariistay wuxuu ka soo jeeday Togdheer iyo Saaxil Daahir Yaala Kaahin wuxuu ka soo jeeday Awdal Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayi wuxuu ka soo jeedaa oo wali jooga wuxuu ka soo jeedaa Togdheer haddaynu reer Maroodijeex nahay waa markeennii haddaynu reer Hargeysa nahay waa markeennii waxay noo sharaxan Muuse Biixi Cabdi oo mujaahid ah oo garanaysaan gobolka Maroodijeex uu ka soo jeedaa Hargeysa ka soo jeedaa halkan waxaynu u taagannahay xisbiga kulmiye iyo inaynu taageerno doorashada soo socota taa waxa ka ballan qaadaysaan oo muuqiinu muujinaya degmada Sabawanaag iyo dadkeedu inay xisbiga taageersan yihiin waxaynu ku taageeraynaana waa horumarka la soo sheegay Sabawanaag uma baahna cod hayba inay bixiso laakiin waxay u baahan tahay cod horumar inay bixiso ka ay ku sii horumaraysaana waa ka codkiina inaa horumar ku bixisaan soo diyaar uma tiidin haddaba xisbiga kulmiye ee shalay markuu talada dalka qabtay waxaanu horumar idin qabtay ee aan idin laawin waa xisbi idin garanaya biri markuu mar labaad mudaxileedkiisa ku soo noqdona horumarkii uu shalay qabtay uu dhammaystirayaa inta kale aad tabaysaana uu dhammayn doonaa waxaa inoo ballana haddii alla yidhi bisha 11aad 13keeda maalinta la gaadho idinkoo kaadhkii codaynta haysta inay idinu codaysaan mujaahidka reer Hargeysa madaxweynaha gobolka Maroodijeex ka soo jeeda Muuse Biixi Cabdi waxaa dhowr goor laga dhawaajiyay inaan ahay wasiir dawladii biyaha degmada iyo inta ku hareeraysan waxaan u maleeyaa dhibta inoogu badan ay haysatay abaarihiina soo martay waxa hayeen biyo waxaan rabaa in yaro warbixin kooban inaan idin siiyo degmadan iyo hareeraheeda waxa laga hirgeliyay oo laga survey laga sameeyo laga soo diyaariyay in 8 ceel biyood laga qodo 8 ceel biyood surveygoodii ama qaabkii loo qodi lahaa iyo wixii lagu qaban lahaa waa la diyaariyay wasaaraddeeda yaalaan waa diyaar waxa imika noo diyaara inaanu labadii ceel ee u horeeyay imika aanu dhagax dhigno oo qodaalkeedii u horeeyay aanu sameeyno waxaanu u soconay wasiiradii baa ka warramay iyo madaxdii xisbiga qayb waxa ka ahayd oo ku darayaa inaanu u kuur galno oo doorashno eegno baahiyaha asaasiga ah ee deegaankaanu marayno dadka taladooda dhageysano qiimayno barnaamijyadii ka soo kabashada abaaraha wixii qayb laga qaadanayo aanu ku warcelino maxaan ku dhahay idinkuna runtii waqtiga doorashada ee soo dhow wixii wax qabad ahaa gudoomiyaha ka hadlay biina waa kii wasiirku ka hadlay waxa kale oo iyaduna barbar socota cisbitaalkan in wixii laga qaban karayo isagana aynu suurto gelinay insha Allah tacaala oo isku dayno inuu noqdo idinkoo MCH-kina hore leeyahay bahalkii leeyahay keenay ambulance-kii
inuu noqdo mid isna idiin shaqeeya ilaahay idamkii dee xisbiguna runtii qiimo badan buu halkan ku lahaa xisbiguna runtii halkan doorashadii horena cod badan buu ka helay doorashadana waxa weeye xisbi cusub oo imika la shirabayo oo imika la tijaabinayo maaha maalin walbana haddaynu mid cusub tijaabino dee waxa weeye haatan kan u baahan wakhti kale oo wax ku sii qabto ayaa malaa ka mudane waa idinka eegaynaa codkiinana siisaan xisbiga aadna waa u mahadsantiin soo dhowayntiinna markay halhaleel gashe fuluu harbayee baxsaday hedooda kuwii baxshiyo maxaa hal aday ku jira horaan waxtar lagu farxiyo xisbigan guuluga hele halkaa ka sii wade uhuro codka siiyo hinjiyo kulmiyo xafiiskan waxa weeyaan xafiiskii saddexaad ee aanu maanta ka furayno degmada Sabawanaag xafiisyaduna sidaas ay u soconayaan xafiisyada waxa isugu imanaya dadkii u codeynaya xisbiga kulmiye waxaan u maleynayaa degmada Sabawanaag dhammaanteed inay xisbiga kulmiye u codeyn doonto insha Allah biidmillaahi kariim hinjiyo kulmiyo kaca horaan waxtar lagu farxiyo xisbigan guuluga hele halkaa ka sii wade uhuro codka siiyo hinjiyo kulmiyo kaca hinjiyo kulmiyo kaca goobtan halkan uu ka riday intaanu taageernaa way soo baxdaa waanu soo dhawaynaa waxaanu soo doonaynaa wasiirku wax badan buu qabtay intii uu hayay ama xisbiga kulmiye wixii hawla ah naga qabiya anagu lacag iyo waxna siima doonay laakiin wixii wax qabada ay imika cusub ee hawlgalka ku jawaa doonaa saddex qodob in loo qabto iskuulku naga dubay oo dayal baa jigada ka qaaday wax laga qabto doon saada waanu soo waxbarashada way khusaysan waanu sheegnay in beeshu waa deegaan ballaaran in loo sameeyo rug boolisna waa doonaynaa waxaa kaloo doonaynaa goob caafimaad xanaano in loo sameeyo waxaa kaloo soo dhawaynayaa xisbiga kulmiye halkii aanu haddee la kureeyey maalintii haddee la kuriya kulmiye aan bartaanu ka ridnay aniga ismaaciilkaas waanu isku xignay bartaasaanu haddee la kureeyey xasan barre udba halkaanu ka ridnay weeye bartaasoo caalamku ka taagna bartaasaanu ka ridnay haddee sidii baanu anagu haddee la kuroo yahay xisbiga aanu u haynaa haddee la kuroo yahay saddexdaa qodob ee ismaaciil sheegay guddoomiyuu sheegay ayaan ku raacsanay gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane axmed cabdidheere oo deegaankan ka soo jeeda iyo annaka iyo kulligeen muxuu ahaa inta kaleba waxa saraakiil fara badan baa meesha maraysa madax fara badan baa maraysa wasiirro hore iyo kuwa dambaba way marayaan aad iyo aad baanu idin wada salaamaynaa salaanta ka bacdi aad iyo aad baad ugu mahadsantiin rag iyo dumarba inaana soo dhowayseen oo si fiican oo qurux badan u soo dhowayseen waxayna soo maray xukuumaddu hawlaheedii iyo horumarkeedii iyadoo wadda sidaa ka warqabtaan wixii la qorshaynaya waliba way kala horreeyaan waddanku wuu ballaadhan yahay itaalkeenna dhaqaale iyo awood la'aaneed ee xagga dhaqaalahaana waa ka war haysaan oo dawladda ictiraafay ma nihin hase yeeshee waxaa loo qorsheeyaa ummadda dee sannadihii ay xukuumaddu xilka haysay waxbay kala horraysiinaysay waxna waa la qabanayey waxna waa dambeeyaan waxna waa lagu jiraa weli waxqabadkeedii waa la sugayaa inta u hadhay xilka uga hadhay degmo ballaadhan baynu ka tirsannahay oo laba degmo waaweyn baynu haddaynu reerka deegaanka nahay aynu leenahay xukuumadda kulmiye wax badan bay ka qabatay deegaanadeeda tuulo walba in la soo gaadho waa u qorshaysan tahay laakiin dee waa la kala horraynayey waxaa kaloo ina soo dhex galay abaar iyo oodolulul aa ogtihiin oo idinkuba halkaa saamaynteeda idinku muuqato ayaana soo maray waxayna soo maray xoolihii oo laynaga joojiyey waxayna soo maray duruufo adag oo aanu qarankani ku talagelin waxaa la yidhi bini aadamkuna waxbay qorsheeyaan
ilaahayna wuu qadaraa wixii dhacaya waxayna soo maray waxaynaan ku talagelinoo horumarkeennii iyo qorshihii aanu dhignay iyo ballannadaannu qaadnay inta yaree ka hadharsanayd aannu ku dhammaystiri lahayn waxa ka soo dhex galay duruufaha adag baynu soo galay waxaannu ka raali gelinaynaa shicibkan iyo shicibada kale ee aanaan weli howlaha iyagii horumarineed ee aannu u qorshaynay ee aanaan gaadhsiinin waxaannu ka raali gelinaynaa waxaa dhacay aan gacantayda ku jirin ee ilaahay keenay ayaannu ka raali gelinaynaa haddana ilaahay roobkii iyo barwaaqadii way noo shubay wakhti doorasho ayna soo gashay waxaannu ku ballan qaadaynaa inaannu wixii dhimanna aannu dhammayno wixii cusubna aannu ku darro horumar cusub oo horlena aannu samayno sidaa darteed waxaannu idinka codsanaynaa inaynaan xulufadeennii kala furfurin inaynaan shuruudo cusub isku xidhin inaynu waddankani uu keennii yahay inuu waddankani kuwaynu u soo halgannay ee dadkeenna ay u dhinteen ee ay u baaba'een yihiin degmadeennan iyo deegaamadeennan aanu socdaalka maanta ku marayno waxyaabaha ka qabsoomay waxaa ka mid a ilaa iskuulkii Cadaadle marka la soo taxo dhakhtarro dee degmadeennan sabab wanaagaanu imika ka nimi inta hawlooda ee laga fuliyey magaalo madaxda degmadeenna ah deegaankeenna ah waa ogtihiin kuwa kalena waannu soo gaadhsiin doonaynaa waxaannu maanta wadnaa musharax cusub musharaxeennii hore madaxweynaheennii wilimka xilka weli sii hayana waynu u mahadnaqaynaa oo ballankan uu qaaday ee uu fuliyey wixii ka dhimanna waa dhammaynaynaa iminkana waxaannu wadnaa musharax cusub oo reer Hargeysa oo maroodi jeex ah innaguna waxaynu nahay reer maroodi jeex oo reer Hargeysaynu nahay waxaynu doonaynaa inaynu codkeenna ku hubsanno oo aynu siino si aynu Soomaaliland oo dhan horumarkeeda u gaarno innaguna inta gaarka ah ee ninka qoyska la yiraahdo uu leeyahay ilaa mar hadaynu maroodi jeexna kulli yar bay noo dheeraan doontee inaynu inteenna aynu ku talagalno oo aynu u codaynaynu doonaynaa waa waqti gaaban cadceed bayna haysaa reergaas waxaannu doonaynaa waxay ka tirsan yihiin degmada Sabawanaag xukuumadda kulmiye degmada Sabawanaag wax badan bay ka qabatay xukuumadda kulmiye wax badanna way u dhiman yihiin kuwana sheegayseen baa ku jira insha Allah haddaanu doorashada ku guuleysano oo codkana siisaan wax badan baanu ka qaban doonaa deegaankeenna ragga halkan maraya ama wasiirka noqdo ama wasiiradii hore dhammaantood waa madaxdiinii weeyaan deegaankan bay ka soo jeedaan maca wasiiru dawlaha waa deegaankan bay ka soo jeedaan ninkan waa nin reer Ceerigaaba wasiirkan Maxamed Warsame waxaanu doonaynaa halkaanu idin nidhaahno marka ay siyaasadda tahay annaga doonayna deegaankan baanu ka soo jeednaa deegaankan inuu horu maro waanu jecel lahay waxaanu doonaynaa in cusbitaalo loo dhiso MCH kaliya maaha wa insha Allah waanu ka hirgelin doonaa idinkana waxaanu idinka codsanaynaa inaad codkana siisaan ilaahay baa mahadle farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu idinku nimaadno tuulada gaas oo ka tirsan degmada caanka ah Sabawanaag waan idinka mahad celinaynaa sidii diiraneed ee fiicneed ay idinoo soo dhaweyseen waanu idinku hambalyeeynaa sida heeganka ugu tihiin ay idinu muujinaysaan taageerada u haysaan codka iyo cududda ay idin goonida u siinaysaan xisbil xaakimka talada maanta hayee kulmiye halkan odayadii ka hadlay waxyaabihii ay ka hadleen iyo waxqabadka ay sheegeen dee waxaa la yidhi awrka dambe awrka horuu tallaabadiisa leeyahay degmada Sabawanaag ayaa idiin addegmo halkanaa laga sheegay Sabawanaag kulmiye ka hor caddaysimay ahayd wax badan baa kulmiye ka qabtay idinkuna makhraati baa ka tihiin marka maanta kulmiye uu Sabawanaag wax badan ka soo qabtay muddaxileedka labaad ee Britain waxa ku xigta inuu gaas yimaado meesha kale ku sii xigtana uu yimaado runtii gaas waa meel taariikhi ah waa meel qiimo gaar ah leh waa meel miisaan weyn ku leh tuulaha yari dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland aan iska daayiraade kulli gaasna waa soo gaaro waan garanayaa marka waxaan leeyahay in badanna waan idinku soo noqnoqdayo haddaan maanta idin imi mar anigoo musharaxana waan baarlamaanka u sharaxana waan idin imi cod badanna waan ka helay runtii maantana anigoo wasiira oo wax idin jari karayaan idin hor taaganahay waxaan leeyahay
sharaf weyn bay tahay taasi cabashooyinkiin iyo dareenkiinnii waanu weelaynay waxaanu halkan u maraynana qayb waxa ka in aynu eegno oo aanu laabta gashanno wixii dareenahee noo soo gudbiseen ha noqoto iskuulka ha noqoto MCH-ka ha noqoto rug boolis oo nabadgelyadiina ilaalisa intaba waxa weeye waa waajib inaad nafartaan annaguna waa la noqonaynaa biidni illaahi tacaala xukuumadduna runtii wax badan bay dalka ka qabatay halkii la marayay maanta marka la eego ee maalinta ay kala wareegtay xukuumaddii hore waa meel mucjiso ah marka waxay u dalbanaysaa isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu isagu door biday inuu xilligan muddaxileedka ka fadhiisto waxa uu dhabarka taabtay oo ugu talagalay inuu yiraahdo uu xulay isagu markuu yiri waan ka tagayaa waxa uu taabtay dhabarka oo yiri dalkan waxa la xijeclo kale oo horumar gaarsiinaya oo aragtidii aan ku waday meeshii aan ku waday gaarsiinaya gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ee xisbiga u sharaxan dareenka madaxweynaha waa dardaaran uu inooga tagayo ummadda Soomaaliland uga tagayo waa oday weyn oo ruuc cadaaya halkan buu waqtigiisii ku dhameystay intii damana Ilaahay baa hogaamiyay inooga dhigay maantana dardaaranku inooga tagayo waxa la xajalo dalka ka leeyay inuu yiraahdo warninkaasaan hubaa ee raaca oo dhabarka gacanta qabsada inaguna waa inaynu taafulnaa soo balanteenu sidaa ma aha horaan waxtar lagu farxiyo xisbigan kuuluga hele halkaa ka sii wade codkasiyo injiya kulmiyo u kaca injiya kulmiyo u kaca kadib waxaan salaamaya dadweynaha reer Labi Sagaala ee sida sharafta leh aniga laftaydu waftida kamid ah noo soo dhaweeyay ee noo maqlay ee noo dhageystay ee hal diidan lahayn ee dhammaan taageerada kulmiye haya ee ku ballan qaaday inay codkooda siiyaan xisbiga kulmiye iyo Muuse Biixi Cabdi inay siiyaan ayaan aad ugu mahadnaqaya dawladda ma ridnay annagu waan dhisnaa dawladda ma ridno laakiin waanu dhisnaa cigaal baanu dhisnay waxaanu dhisnay riyaalaanu dhisnay waxaanu dhisnay siiraayaanu dhisnay kuwa kalena waanu dhisinaa magaaladan Labi Sagaala had iyo goor aniga markii ugu horeysay ma aha mar labaadkii anigoo wafti aan iyo markii saddexaad waxay tahay ma kala hubo mar walba soo dhaweyn wanaagsan iyo sharaf baanu kala kulannaa maantana tiyo kala noo muuqata idinkoo waliba ka soo gudbay dhibaato iyo abaar iyo kadeed iyo cabashooyinka badan ay sheegteen haddana niyad wanaag ayaa nagu qaabisheen waa mid noo guntan midkaasi waa midna farxad gelinaya waa mid nagu dhiiri gelinaya wixii aanu qaban lahayn ama aanu ballan qaadi lahayn inaanu ku sii tallaabsanno aanu guntanno magaaladan waa magaalo weyn Labi Sagaala dhammaan shacabka ku nool aad iyo aad baan u salaamayaa marka hore
sida wanaagsan aad noo soo dhawaysan waa idinka mahadnaqaynaa mar kastoo aanu nimaadnana sidaas si leeg baa noo soo dhawaysaan waa markii labaad ee aanu annagoo xusbiga kulmiye ah halkan idinku nimaadno markii hore cabashadiinnu way yarayd maalintaa hore hal cabashaa noo soo gudbiseen oo ahaa maalinta halkan aanu marinay guddoomiyuhuna wuu nala socday xusbiga kulmiye waxay ahayd waxaad tidhaahdeen cusbitaalka waxna lagala qabto cusbitaalkii wixii karaanka iyaga haddaannu xusbiga kulmiye nahay waannu soo dhiibnay waananu ku darray waxbana looguma darin baa mar dhawaytaan maqlayey waannu ku darray waxaananu jecel lahay anaa soo dhiibay guddoomiyaha ii soo dhiibay taas marka yacni kelmaddii un baan raacaya waxaananu jecel lahay inaannu dhammaystirro haddii ilaahay yidhaahdo isaga iyo wax ka badanba inaannu qabanno deegaankan waannu ka soo jeednaa intayada halkan fadhidaaba annagaa jecel inaannu waxu qabanno annaguna waxaannu idinka doonaynaa shuruudiina inaydaan nagu xidhin madaxdiinnii baannu nahay cod baannu doonaynaa inaad siisaan xusbiga kulmiye codkaasaannu wax idinku qabanaynaa haddaannu mar labaad ku guulaysanno intaasaannu idinkana idinka codsanaynaa marka labaad waannu idinla qaybsanaynaa dareenkaa dadkeennaa soo barakacay ee xoolihii ka dhammaadeen waxa weeyaan waa cibro waxa weeyaan waa qadar allo xagga rabbi ka yimi nin dhowr boqoloo adhiya haystay inaanu maanta neef haysanin midna ay wuxu soo hadheen ka ay wuxu soo hadheen waxaannu leenahay oo aannu ka codsanaynaa warkaaga caydhoobe wax ka sii keenna kale ay ka dhammaadeen iyo dhammaanteen wixii naga baxayna aynu ilaahay u noqonno aynu ilaahay barinno aynu ilaahay inuu dib inoo xoolayo waxba kuma ilaahay weydiisanno haddaanu nahay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda uu madaxweyne ka yahay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo muddadii abaartaasi dhacday shaqooyinkii qarankoo dhan waa la joojiyey dadkaa loo gurmanayey dhulka somalilanna wuu ballaadhanyo waa idinka warqabtaan dadyow aad u fara badan baa ku nool abaartuna way kala badnayd meeshii bakhtiyaysay ku badnayd horaa loo aadayo waa la tegayey meeshii ay ku fududaydna waxa layslahaa waxaad dambe idin gaadhi doontaan arrintaa waannu dareenkeeda waannu la qaybsanaynaa waxaa haddeer halkan jooga oo degmada sabawanaag deegaanadeeda ku sugan tiimamkii xanaanada xoolaha ee tallaalayay xoolaha waxay tiimankaasi u socdaan wixii xoolo inoo soo doogay inay tallaalaan laydinma hilmaansanaa saasaa laydiin og yahay guri bay tiimankaasi idinku imanayaan somalilan haddaynu nahayna waxa quraynu haysannaa waa xoolaha nool dadweynaha reer labisagaala oo ah dadweyne qiimo badan runtii oo soo dhowaynta ku caana waan u mahad celinaynaa dhammaantood si ay noogu soo dhoweeyeen deegaankan oo annaguna aanu ka tirsannahay kana mid nahay kuna matalo golayaasha runtii wasiiradii hore dhameeyey iyo xubnihii xisbiga hoggaanka xisbiga halan ka hadlay idinkaa sheegay oo waxaad tiraa idinkaa sheegayna xisbiga u heelan tihiin taageeradiina siisaan taa waxa weeye dee idinkaa ka marakacay oo waxaanu leenahay ku hubsada un doorashada biidnillaahi tacaala taasi waa un tilmaan un weeye dardaaran ta waxqabadka runtii marxalad adag baa sidii cabdulaahi geejire ka warramay aynu soo marray marxalad abaareed ayaynu soo marray oo aynaan tabaabasho hore u lahayn oo inagu daba dheeraatay wax gacanta aynu ku keensannay qayb bay ka tahayoo dee wixii masiibee dhacaa waa bimaa kasabat aydiikum wacafu can kasiir ilaahay baa qur-aan ku sheegay waxa weeye wixii masiibeed biniaadamka ku dhacaa wax xukuumadi keentayna maaha wax ashkhaas oo wax gacmaheenna aynu ku keensano biniaadamka dembigiisa ka mid ah weliba saasaa ilaahay dembi badan inooga dhaafaa marka tabaabasho badan bay xukuumaddu ka gashay waxaa ogtihiin xooluhu wax badan baa dhintay waa loog yahay waana laydiin maqan yahay laakiin dad dhintay oo meelaha qaar lagu soo sheegay sida adduunyada aynu ka daawano tiifiyada meelaha duruufuhu ka dhacaan way yaraayeen taana waxaa keentay isku tashigeenna hadday tahay dadkeenna ganacsatada hadday tahay guddiyadii abaarahee la sameeyey hadday tahay xukuumadda oo aan jeebkeeda waxba kala hadhin jeebka xukuumaddu waa ka dadweynaha weeye kiina un weeye meel kale wax kama keento waa cashuurta yaree laydinka soo qaadeen la ururiyo ayuunbay wax ku qabataa haddaa hakarataanna waxba ma qaban karayso haddaa bixisaanna waxbay qabanaysaa taa horta waa ina ogaataan may dadaal yareen xukuumadda madaxweynuhuna runtii dadaal badan buu arrintaa ka galay falilaahi alxamd waynu ka soo doognay hayni waxay doontaa ha noqotee taana laydinkama hagrasho laha oo guddida dambe ee ka soo kabashada abaaruhu qorshaheeda waa ku jirtaa walow
waxa maanta soo gaadhay iyo wixii la filayay idaacadaha ka dhagaysateen oo aanu leenahay qaadhaankiisa fiican ha loo bixiyo taana waxaanu rajaynaynaa si cadaalad wanaagsan baa loo qaybinayaa qaybaha bulshada oo dhan bay ka kooban tahay cid la xooleeyo waa qorshaha waa ku jirtaa cid beero loo falo waa ku jirtaa dhaamam la sameeyaa waa ku jirtaa xagga biyaha oo laga hadlay waa ku jirtaa degmada Sabawanaag in laba riig wasaaradda biyuhu ay qorshaysay waana noo eegnaa daraasad baanay samaysay biidnillaahi tacaala daraasadda meeshii biyo laga helo maaha macnaheedu meel kasta laga taagayo meeshii biyo laga helo ee daraasadda wasaaradda khubaradu ay biyo ku sheegaan ayuunbaa la geyn doonaa insha Allah ta isbitaalka dee waa markii hore waa sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga waxaad tidhahdeen wax nooga yimi ma jirto laakiin waa dib gadaal baa ka saxdeedoo wixii idin soo gaadhayna waa sheegteen waxaanan u qaadaynaa codkiina aanan u meel geynaynaa waxa weeye war hala soo kordhiyo bahalkii wuxuu u baahan yahay la dhammaystiro soo sidaa ma aha taladaa waa qaadaynaa iyo dareenkiina waana weeleynaynaa waana ku hawlgelaynaa idinkuna ducada ku soo daraysaan insha Allah ballanteena waxa weeye idinkuna dadaalkaa sameeya annaguna waa dadaalaynaa waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii reerku geedi galo halkii loo guuraye hayaanku jarmaadu yahay qoraasaha loogu diray haddii reerku geedi galo halkii loo guuraye hayaanku jarmaadu yahay qoraasaha loogu diray hosiisaan muuqaaniyo habeen cadada ka wacan hantida meel fog kaaga maqan waxaad haysataa ka roon hosiisaan muuqaaniyo habeen cadada ka wacan hantida meel fog kaaga maqan waxaad haysataa ka roon horaan waxtar lagu farxiyo xisbigan guuluga hele halkaa ka sii wade uhuro codka siiyo hinjiya kulmiyo u kaca hinjiya kulmiyo u kaca ilaaha nabcadaa inala kulmiyey ilaaha nabcadaa inala kulmiyey iyadoo aan abaar ahaynna keenin iyadoo barwaaqayna keenay ilaahaasaa mahadle alxamdulilah rabbil caalamiin marka labaad waxaa ku soo dhowaataan waftiga dhammaantiin idinkoo mahadsan waxaa ku soo dhowaataan balligii cali aadan dadkii joogay oo idiin soo bannaanbaxay una diyaara xusbiga kulmiye taageeradiisa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aadan cismaan cabdulaahi baa laydhaah waxaana guddoomiyaha tuulada cali aadan waxaan soo dhowaynayaa waftiga sharafta leh ee wasiirka odayaasha agaasimaha saraakiisha ciidanka dhammaantiin rag iyo dumar mudane iyo marwaba waa soo dhowaynaynaa aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa intaa waxaa ii raacay soo dhowaada waa gurigiinnii waa magaaladiinnii waa dadkiinnii waxa weeyaan ilaahay baa mahadle de ilaah baa saas ugu kaan keenay iyadoo libcadahan aynu joogno waxaanu leenahay waxaa dhacay wakhtiyo badan oo duruufaa ha ogaato xusbiga aannu u helgamaynaa ee aannu la garab taaganay hiil iyo hooba baahida dadkiisa taalla ha eega ummaddiisa oo indho dheer ha u yeesho aad baannu idinka mahad celinaynaa aad iyo aad baannu idinka mahad celinaynaa soo dhowaynta qiimaha leh ee sharafta leh ee nugu soo dhowayseen iyadoo wakhti duruufeed oo abaareed laga soo doogay runtii oo laakiin barwaaqada aynu arkayno maanta ilaahay waxaannu ka baryaynaa inuu barwaaqada inoo sii siyaadiyo inoogu wada aamiindhaha laba shay baannu u soconnay shay waxa weeye inaannu duruufta iyo wadciga idinla eegno ogaanno wixii duruufaad iyo baahi jira aannu weelayno oon idinka qaadno ta labaadna waxa weeye wakhti doorashaa soo dhow doorashadaas soo dhow xisbiga iminka xukuumadda axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweynaha iminka jooga waxa uu u diyaar yahay doorasho dambe 5 sano dambe inuu dhammaystiro barnaamijkiisa cusub ee ah wixii qabsoomi waayey xilligii hore waxaana musharax u ah
muuse biixi cabdi oo gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa madaxweynaha waxaanu rajaynaynaa إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن عدك وقبضنا سيدون تانا وهبا إذا كنا وابلنا قادين وضياشين وكوالا كشيء دياد بانو إذا كما هذي علينا إذا كنا قوم قادم إنه وايد لتشوقنا وانا إذا لتشرينا إن شاء الله دمانتي وسلامتي runahaantii marka aynu isu sheegnay imaka waxaanu aad iyo lixaad uga tashanay waar dad reer miyi baynu nahay inaku waxaynu nahay ciidanka militariga oo kale dadka u shaqeeya waxa weeyaan soo saara dhaqaalihii wadanka abaar badanina way nagu dhacday dadaan cilmi lahayn oo waxba baranina waanu nahay marka waxaanu nidhi waar xusbigan waxaynu ka codsanaynaa in uu si wacan inoogu dhiso bal meel iskuulahood caalamka aynu meel un kala jaan qaadno oo laynoogu ballan qaado uma kicin waa soo koobayaa wixii hore Ibrahim baaba dhameeyay sida runta soo dhaweynta xusbiga kulmiye waa soo dhaweynina ka ummad ahaan iyo ka magaalo ahaan iyo ka population ahaan waa soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa salaanta ka bacdi aad iyo aad baan ugu faraxsanay sida quruxda badan ee noo soo dhaweyseen garabka haweenka iyo garabka ragba aad baan idin salaam waliba gaar waxaan sii salaamayaa garabka haweenka sida quruxda badan ay noogu ciyaaraan ay noo soo dhaweeyeen ay xusbiga u taageerayaan ay leeyihiin waan garab taageernay annaguna waxaan idin bala qaadnay inaanu idinku soo noqonno oo sidaa noo barbar taagantiin idin barbar taagnaano haddii ilaahay yidhaaho dhammaantiin rag iyo dumarba waan idin salaamayaa aad baa u mahadsantihiin sidaa noo soo dhaweyseen in yar haddaan idinka warramo xukuumaddan maanta talada haysa oo hogaaminaya Axmed Siilaanyo waa xukuumad xusbiga kulmiye ka tirsan dalkeenna wax badan bay ka qabatay deegaankeenna wax badan bay ka qabatay tuulo looma gaadhin laakiin wax badan oo laga qabtay baa jira labadeenna degmo aynu halkan ku leenahay Cadaadle iyo Sabawanaagba إن شاء الله وحن رجينا هذا نمر لبعض كقولة سنو إن أنو تولوين كنا سو قارنو أو بلغ قاسين سكول كا واجب بيكون هاي حكومة دوينا ودستو وواحد دولة دعوت كوسيسان ويان إن سكول هذا اللي يدين دسو رجع في مادنا اللي يدين دسو أنت بواجب بأولادهين حكومة داني واجب كاسو سعرين يهاي والله يدين دس دونا إن شاء الله إذا كانوا وحلا يدين كرجينا يا سدا أكو بلغ قادين إن أساس أرتان حسبك كل مية مرة بعد. ماشي اللي يقفلوا لي شيء قلدي مسارد على كتير في غير أنا ما أدري ربي تبصرك وأركب وقت مركز بنتاسع دور هوران وحتر لقو فرحيو حسبي قلبي وهو رعد كسيو إنتي كل ميو وكعة إنتي كل ميو وكعة ديجان كان سو شقيستي رنت مركز لقى هضليو ومدحض وأركيسا ديجان كان سو شقيستي وحنو كدوان الناس سو شقيستي إلا لقو شقيو حسبك كل مية حسب المحافظك حسب الحاكم كحسب الحاكم هذه تلاذايا وكترسن هاي وسود ويننا وكشان هاي وحبا لقبسنا وتاجرنا وحي ولكن الله إلا وفتشي حسبك كل مية وأنا سود ويننا وأنا مهتسيي وحقبتنا ذلك ويا شيء أفر مدحوينه هرا سومالي اللين انتو قبتين لما قبن وكل مهتسيي بقول كيف بقول بكل مهتسيي قامين هايو يوم مدحدي وسيرة وأنا سود ويننا حسبك وأنا تاجرسنا هاي هدي أن ku sii yardaaho xagga baahida 300 qoys oo hore u oolin Bal Axmed ayaa dul degay sanadka oo ay keentay abaartu kolkaas inta miyiga degtana 300 bay tahay 600 oo abaartu saameysay waxay u baahan yihiin raashin degdega oo lala soo gaadhay bay u baahan yihiin waayo waxay karsadaan ma hayaan waxay noo ballana reer Bal Axmedow waxay noo ballana inaynu xusbiga taageero oo aynu codkeenu siino sidaa ma tahay waa inoo ballan warwarkayga u weyni saaka wuxuu ahaa
tolo balli axmed maydigaadh oo dhiidhigaasi mudine xanibi idinkaanu idinku soo ordayn waxaanu ku faraxsanayn inaanu idin soo gaadhno maruun ilaa shalay waa wareegaynay roobo badan baanu aragnay meelo badan baa gawaadhidu naga gashay waxaanu ku soo degdegaynay inaannu la kulanno dadkiina wanaagsan oonu horena uga barannay taageero iyo soo dhoweyn wax badan baa aragteen siyaasiyiinteenna oo kala xusbi ah oo midba meel ka soo ridayo waxaanu maanta intayadii badnayd sababtaanu u midaysanaanu ku wada soconnaa ee aniga cali warar cadde farxaan wasiirradaydii hore oo dhan aanu meel u wada joognaa ee aanu ugu kala tegi weyne waxa weeye waxaanu ka ognay xusbiga kulmiye horumarka uu idinku ballan qaaday iyo waxaanu ka ognahay inaynu degmooyinkeenna iyo qarankaba ugu qaban doono ayaanu meel ugu wada joognaa waxaan u horraysiinayaa horta awalan waa baahiyaha sheegteen waa ku mahadsantihiin dadka abaaraha dalkao dhan bay saameeyeen xukuumadda iyo dadkeenna somalilan iyagoo iskaashanaya ilaa xukuumaddu shacbiguunbay ka timi waxay haysaana waa waxii dadku cashuurta bixiyaan weye meel kale wax kama keento iyagoo isku tashanaya abaarihii lagama hagarasho la'ayn hadday biyo tahay hadday maxaan ku dhaha cunto tahay wixii itaalinoo saamaxay waa waxaynu duruuftii abaarta kaga soo baxnay waxa maanta nafarteen ee dadkaa caydhoobayna iyo xoolaynta iyo baahida haysata waxa weeye waa weelaynay hadalkiina waana qaadaynaa waana dee jawaabteeda insha allah hadbay taal sidii noogu saamaxaa u helaysaan biidni illaahi tacaala xisbiga kulmiye waa xisbi hore loo shirrabay waa ogtihiin sannado ayuu dalka soo xukumayey madaxweynaha rugcadaaga ah ee halgamaaga ahaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo runtii ay idinkuba sheegteen geedkii uu fadhiyey markii islaamta lahaa inuu halkan ahaa oo maanta taagan yahay maantana wuxuu inoo suntay oo uu yidhi xisbiga waxaan kaga tegayaa iyo 5 sano inuu dalka sii xukumo uu taladeedii iyo siyaasadayda ku hogaamiyo uu sii wado hiraalka mujaahid muuse biixi cabdi waynu taageeraynaa taageeradina waa muujiseen waana ku mahadsantihiin maanta guriganaynu taagannahay ee Balle Axmed waa gurigii toddobaad ee aanu ka furro degmooyinkeenna sidaasaana u sii socon doonaan insha allahu waxaan idinka rajaynayaa ballanqaadkaa ballanqaadee inaad fulisaan insha allahu biidnillaahi kariim waxa weeyaan odayaashii hore idiin sheegay xadhigun baan ka taraynaa bismillah xisbiga kulmiye haddaad tihiin marka hore waan salaamaynaa waananu soo dhowaynaynaa dhammaan deegaanka garhka warsamaxaad oo ah ka tirsan degmada Cadaadley si wanaagsan oo weyn buu idin soo dhowaynayaa hamad weyn iyo niyad weyn oo wanaagsan waa inii haynaa tuulada garhka warsamaxaad oo tuulo taariikhi ah magac dheer leh waa uga mahad celinaa soo dhowaynta qiimaha leh noo sameeyeen laba shay baan u soconno inaanu ku kurgalno xaaladda guud ee deegaanka Sabawanaag iyo Cadaadley iyo inaanu xusuusino dadka inay doorashada soo dhow xisbiga calankiisa sidataan ee xukuumiga ah ee xukuumadda maanta joogta ay isaga dhalay xisbiga dhalay tadamana inuu inoo dhalo isagu insha Allah ayaanu idinka rajaynaynaa taageeradiina siisaan kulleyna waa siinaysaan biidnillaahi tacaala aad iyo aad baa u mahadsantihiin wafdigii xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ka socday ee safarka ku marayay jiida dheer ee hoos timaada deegaamada degmooyinka Sabawanaag iyo Cadaadley ayaa safarkoodii kusoo gabagabeeyay degmada Cadaadley waqtigu intii ay jiidaasi marayeen ee ay safarkoodii ku guda jireen waxay la kulmeen dadweyne aad u tiro badan oo si aad u taageersan xisbiga kulmiye isla mar ahaantaana u ballan qaaday inay codkooda siin doonaan mas'uuliyiinta wafdigu waxa ay ka dhageysteen cabashooyinkii dhinaca adeegyada arrimaha bulshada ahaa ee ay soo jeediyeen dadweynaha deegaankaasi isla mar ahaantaana waxay u ballan qaadeen inay kula noqon doonaan xukuumadda oo si dhaqso ah loo fulin doono
degmada Cadaadle oo lagu qabtay munaasabad ballaaran ayaa waxa ka hadlay salaadiin xuquuqal dadweyne iyo waxgarad deegaankaasi ka tirsan iyaguna sidoo kale waxa ay ballan qaadeen inay codkooda siin doonaan xisbiga kulmiye. iyo soo dhaweynta aadka u qiimaha badan leh aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa inta badan halkan aad taagnadeen ilaa subaxii saaka ee sugaseen waftiga aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya afkii degmada Cadaadle ahna xogay degmada Cadaadle ee fulinta waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa waftigan qiimaha iyo qaayaha leh ee ka socda xukuumadda kulmiye oo aan aad u jecelnahay intaa waxaa iga raaca anigu waan inoo furayay hadalka roobna waa soo da'ayaa mar labaadna waxaan u mahadnaqaynaa xukuumadda iyo waftigan kaleba waxaan haddana barnaamijkii kaga baxayaa allah mahadlehe xukuumadda kulmiye ha guulaysato waxaan ahay gudoomiyihii xusbiga kulmiye degmada Cadaadle waxaan halkan ku soo dhaweynayaa maanta xusbiga kulmiye waftiga sharafta leh ee qiimaha iyo qaayaha leh ee isugu jirta wasiirada iyo cuqaasha cid walba iyo mas'uuliyiinta kale ee halkan noogu timi maanta aad iyo aad baan u soo dhaweynaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa magacayga oo ah Baxsan Ismaaciil Cilmi anoo ah garabka haweenka xusbiga kulmiye ee u jooga degmada Cadaadle waxaan soo dhaweynaynaa xusbiga kulmiye sharafta iyo qiimaha naga mudan ee wasiirada iyo cuqaasha iyo gudida iyo garabka haweenka mid walba leh ku soconayaan siyaasad bay dheelayaan ay samaynayaan siyaasad bay dheelayaan u saldhigi karaa adaa ku samaystayoo saanigii ku helay adoo rabbiga ku siin arka kooga saxi inaadeer ha saluugine saani noo habee deebayna hablayaga qeedane adu quruxda badan dhammaana soo booqday noogu yimi xabigan salaan iyo kalgacal baanu maanta siinaynaa haddii aan soo dhaweyntaa ka tago waxa weeyaan kulmiye dee waxbuu qabtay waxna waa dhiman yihiin wuxuu qabtay waanu ugu mahadnaqaynaa dhammaantayo reer Cadaadle waxyaabaha ay qabtay waxaa ka mid ah dee iskuulka boodhakay ka qayb qaateen dugsiga secondary-ga saddexda kalaas iyo ofiska inoo dhiseen waxa kale inoo keeneen ambalaas oo muddo dheer aanu raadinaynana waa inoo keeneen intaa waa ugu mahadnaqaynaa anigoo ah suldaanka Cadaadle ilaa Sabawanaag waxaan halkan ka sheegayaa xukuumadda kulmiye wixii ay u qabatay dadka ku nool Sabawanaag ilaa iyo Cadaadle degmada Cadaadle sidaa uu imaka sheegay Rashiid oo iga horeeyay way muuqataa waxqabadka ay sameeyeen hadday tay iskuulkii boardingka aynu hore aynu u aragteen hadday tahay waxay ka qabteen caafimaadka iyo hawlo kale oo fara badan oo hadhay insha Allah khayr baan u rajaynaynaa dawladda kulmiye wasiirada hogaaminayo halkan waxa weeyaan degmada Cadaadle waa halkii uu ku gabagabeeyay markii uu xukunka la wareegi doono uu jagad madaxweynaha ku guuleystay insha Allah imaka waxaan idin rajaynaynaa khayr inay sidaas la mid ah ku guuleysataan baan idin rajaynaynaa sayidina wa nabiyina Muhammad runtii inkastoo wafdigu aad u soo daalay oo meelo badan aan soo marray runtii oo ilaa xalay ilaa habeen horeba aanu
maraynay degmooyinkan waxaanu aad iyo aad runtii aanu ugu hambalyaynaynaa deegaanka sabawanaag iyo cadaadley oo runtii dad qurux badan oo aad iyo aad maanta u danaynaya waxtarka iyo waxqabadka maanta dalka uu marayo mahadnaqaana waxaa leh dadweynaha quruxda badan ee sharafta badan ee ka soo jeeda deegaanada cadaadle iyo sabawanaag dadweynaha sharafta lena waxaanu leennahay halkaa iyo meel ka sii badan iyo wax ka sii badan baa lidiga doonayaa haddii aad tihiin reer sabawanaag iyo reer cadaadleyba wixii laydindiga doonayo ee maanta halkaa u joogtaa waa garanaysaan layndafari maayo layndii sheegi maayo waa maanta wixii waxqabad ahaa ee maanta cadaadley hadday tahay iskuulka hadday tahay m c h hadday tahay gaadhi maxay ahaydeen ambalaas hadday tahay maxay ahaydeen gaadhi degmo intaba waxa weeyaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wixii dhimanna dawladda cusub ee soo socotaa insha allahu tacaalaa inoogu dari doontaa aad iyo aad baa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi aad iyo aad iyo aad yaanu idinku mahadnaqnaa sidaa noo soo dhowayseen sidaa noogu shaqayseen sidaa qadada qurux badan macaan noogu samayseen sidaa ilaa saaka noogu sara taagnaydeen ilaa shalay ilaa daraad aad iyo aad baanu idinku mahadnaqnaa waanu soo dhowaynaynaa wixii laga hadlaayay dee salaadiinta hadashay madaxdii hadduu yahay wasiiradii iyo hadday yihiin madaxdii kale xusbigiiyo iyo degmaduba qaarna way hadleen inta kalena way hadli doonaan amin gaabanna waa la joogaa waxaynu isfaraynaa waxa weeye horumarkaynu doonayno dee maanta waynu haynaa wixii kalena waynu sugaynaa dee qabyo ninkii bilaabay unbaa dhammeeya kolkaa waxaan leeyahay xusbiga kulmiye isagaa dhammaynayo wixii dambe hadhayna waxaynu leenahay sidaa aynugu helan aynugu codayno aynugu codayno wasalaamu calaykum waraxmatullah mahadda iyo cabiraadda la cabiray wanaaggaa nagu soo dhowayseen waxaan la qabaa dadkii iga horreeyey ee hadlay waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin dadkii ka shaqeeyey dadkii abaabulayey iyo inta ka soo qayb gashayba waa mahadsantihiin waxaan si gaarana ugu sii mahadnaqayaa raggu calooshu ka hadlaa baa layidhaha cudbi fagaasoona dhargisay ayaan iyana si gooniya ugu mahadnaqayaa ilaahay haddaaye waxa weeye waxaa socod dheer baanu soo galloo 2 cisho ah oo labadeenna degmaa dad badan baanu la soo kulannay dad badan oo dadkeenna oo deegaanka ah tuulayaasha iyo magaalooyinkaba fariinta iyadu midun bay ahayd dadkuna uu badnaa laakiin fariintu midun bay ahayd fariintu mid bay ahayd waxay ahayd waxaanu wadnaa xusbiga kulmiye waqti doorashaa la joogaa muddaxileedkii horaa dhammaaday kii cusbaa baa loo tartamayaa in naloo codeeyaa baanu u soconnay waa xisbigii halganka iyo horumarka markaa innagu waxayna xisbiga kulmiye iyo degmada cadaadley waxaan ku soo dhawaynayaa axmed cabdidheere isna si uu kelmaddiisa u dhaahdo in guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anigu waxaan 2 kelmadood baan halkan ka odhanaya labaduba hambalyo ah marka hore waxaan idinka mahadnaqaynaa soo dhowayntii aadna soo dhowayseen ee quruxda badnayd ee diiranayd ee kalgacaltooyada lahayd aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa reer cadaadley talaba iyo casuumaddii raacday labadaba ee quruxda badnayd ee wanaagsanayd mar labaadka waxaannu idinka mahadnaqaynaa oo guddoon noo ah inaad tidhaahdeen xusbiga kulmiye codkaannu siinaynaa mar labaadkana dadweynaha degmada cadaadley ayaan hambalyo iyo mahadnaqba u dirayaa soo dhowaynta qiimaha leh ee nagu soo dhoweeyeen safarka iyagu sidii horeba loo sheegay wuxuu ahaa kurgal xaaladda guud ee dalka deegaankaanu marayno iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga oo nala socdo hawlihii xisbiga isaguna xafiisyadii degmooyinka sabawanaag iyo cadaadley intiidu badnayd maanta furaya si loogu diyaargaroobo doorashada soo socotee Noofembar oo uu xisbigu mar labaad u taagan yahay musharaxiisuna yahay mudane muuse biixi cabdi biidnillaahi waxa weeye deegaankan cadaadley deegaan cod badan ka helo waxaananu rajaynaynaa insha allah inuu cod badan ka heli doono biidnillaahi tacaala sidii ay salaadiintu sheegeenna dee ballanqaadkiinnii waa sheegteen waana eegaynaa
xusuustana ku hayaanu leenahay waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa weli inoo socota xabsiiskumadeenii aynu ka furaynay gobolka labada degmo Cadaadle iyo Sabawanaag waa guryaha aynu furaynay ee xisbiga kulmiye mid ka mid ah waanu furayay imika laga bilaabo hoggaanka intuu qabsaday xisbigan hoodada wata dalkana uu horumarsho bulshada uu haqabtire hoggaanka intuu qabsaday xisbigan hoodada wata dalkana uu horumarsho bulshada uu haqabtire markay halhaleel gasheen fulu harbayee baxsaday hedooda kuwii baxshiyo maxaa hal aday ku jira